نيجيلك عسنا وأقرصدي نيجيلك عسنا كمان بلوغ مهري مقالة فنباخ إتشرمني والله سرت هذه كده بجاني كمان بتشرمني لوغ مهري وحنا اللي هي وتش ملي هيدنا يلا لوغ على هستني مع سكر بابا لوغ على بقى يلا ما يسوين بقى نكي نقبل لوغوري ولو يعوي maxaa xilligan isku soo beegay arooska cusub ee Ilka Casaqays ma dhaba in Ilka Casaqays uu ku aroosay cariga dalka Mareykanka ee caasimadiisa maxayse tahay sababta ka dambaysa in Nicimo Joker loogu soo qaaday heesta bahdilka ah iyo in kale aadan ogeyn ayaan kula wadaagayaa daawade marka hore subscribe noo saar muuqaalka like tuna waa noo muhiim Ilka Casaqays fanaankan xaaskiisa ahayd Nicimo Joker ayaa hadda waxa uu ku aqalgalay dalka Mareykanka gabar isla markaana ka soo wada muuqdeen Snapchat-ka iyo Instagram-ka ayaa social media maanta oo dhan ayaga ayaa haysta kuwaasi oo inta badan dadku badi ay ku wareereen in aroosku yahay mid dhab ah iyo sidoo kale mid soo socda oo laga hor dhacay laakiin arintan ayaa waxay soo baxaysaa mar qura ay haddana hees soo wada qaadeen heestaas oo ahayd mid bahdil ah isla markaana loo qaaday Nicimo Joker taasi oo xaaska Ilka Casaqays laakiin arintan ayaa waxay noqotay mid dadka hadalhayn badan ay ka dhaliyaan maantana mareegta social media oo dhan ayay haysataa maadaama gabadhan ay ku nooshaa dalka Mareykanka Ilka Casaqaysna muuqaalo iyo sawirro ay ku soo bandhigeen Instagram-ka iyo sidoo kale Snapchat-ka Nicimo Joker ayaa saqudeeda sidoo kale waxay barteeda Instagram-ka soo qoraysa qoraallo u muuqdo in ciil iyo calooliw ka muuqdo inkastoo badi aysan haddana afka soo wada furan kaliya sawirro iyo qoraallo dadka badi wax fahmi kara ay fahmeen ayay ku soo qortay kuwaasi ay ula jeedo in xaajigeeda oo meesha ku socdo wada qiyaana ah laakiin aysan muujin erayo kale oo dhameystiran maadaama warkaani maanta uu soo baxay guud ahaan social media oo dhan liisla dhaxmaraya Ilka Casaqays oo arooskiisa dhawaan uu ka dhici rabo dalka Mareykanka ee caasimadaas Ilka Casaqays ayaa gabadha waxay tiri ku dhawaad 3 maalin oo kaliya naga warsuga taasi oo calmatay fanaanka Ilka Casaqays oo caan ku ah xagga iyo qaadista raabka laakiin dadka oo dhan ayaa ku wareereen muuqaalkan oo isla markaana meel ay wax ka bilaabaan iyo sida xaaladdu ay tahay ayayba garan waayeen weli maysan isguursan Ilka Casaqays iyo gabadhan kala soo muuqata muuqaalka iyo sawirrada laakiin waxa iyaduna sidoo kale Instagram-keeda ay ku soo qortay 3 maalin ama 3 days naga warsuga kadibna waxa dhici doonta ay tiri xaflad qiimo badan taas oo aanan ka dhicin guud ahaan ay tiri meel lamaanayaal Soomaaliya ay ku dhigtaan xaflad ay tiri gabadhan Ilka Casaqays ayaa sidoo kale qudhiisa erayo kale iyo qoraallo ku soo qorayay mareegta Instagram-kiisa laakiin aroos iyo sidoo kale intaba muusan ku muujineen kaliya waxa uu muujiyay sawirka gabadha iyo wax kasta inay macquul gal noqon karaan erayo yar oo ahaa erayo Ingiriis ah laakiin dadka oo dhan ayaa aad ugu wareeray Nicimo Joker ayaa hadda badi waxa la leeyahay heesta Ilka Casaqays ee gabadha isla soo qaadeen ayaa bahdil ugu filneed taas oo ahayd wax kasto isla markaana erayada qaar ay ku jireen oo inta badan markii aad dhageysato ama aad daawato aad inta badanba ka dhax dhuuxan karto in Nicimo Joker halkaasi lagu karbaashayay naceeb iyo erayo kale ay ku jireen Ilka Casaqays hadda muusan aroosin laakiin 3 maalin kadib ayaa laga warsugayaa xafladooda inay ka dhacdo dalka Mareykanka aragtidaada hoos noogu reeb like iyo subscribe-na hanaga hilmaamin saaxiibadeena